Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal. Kusoo dhawaada Noodan channel oo laga barateen casharro tutorials ah ama imtixaano ah oo ku saabsan waliba maadooyinka noo socday video editing iyo waliba YouTube Master Class course. Maanta waxaan qaadan doonaa casharro imtixaano ahay maadada YouTube Master Class gaar ahaan casharkii labaad. Waxaan ku baran doonaa shuruucda ama shuruudaha ay leedahay ama uu leeyahay YouTube, taasoo ah mamnuuc inuu qofku sameeyo loona baahan yahay inuu iska ilaaliyo. Marka insha Allah shuruudahaas ayaan maanta idin la wadaagi doonaa. Marka shuruudda koowaad oo aan idin la wadaagayo waxay tahay muuqaallo aad leedahay soo geli YouTube. Qodobkan ayaa ah qodob muhiim ah oo loo baahan yahay inaad ogaato. YouTube waxaa ka mamnuuc ah inaad soo geliso muuqaal aadan lahayn xuquuqdiisa. Tusaale, muuqaal aad kala soo degtay isla YouTube ama uu leeyahay qof caan ah, waa inaad kanaalkaada soo gelisaa oo kaliyahay muuqaal aad adigu soo duubtay. Haddii aad hal jeer soo geliso YouTube muuqaal aadan lahayn, digniin baa lagu siinayaa. Sidoo kale mar labaad waa isla digniin, laakiin marka saddexaad wax digniin ah ma jiraan. Si toos ah ayaa akoonkaada hawada looga saarayaa. Sidaa darteed, haddii uu hamigaadu ahaa inaad meel sare ka gaartid saaxaddan YouTube, fadlan iska ilaali inaad isticmaasho muuqaal aadan lahayn. Qodobka labaad oo aan kuu sheegi lahaa wuxuu yahay ha isticmaalin codadka background-ka ee aan copyright ahayn. Dad badan ayaa jira kuwaas oo isticmaala codadka background music ah ama sound effects ah. Runtii way jiraan kuwa la ogol yahay inaad isticmaasho, laakiin ay shuruudo la socdaan, kuwaas oo ah inaad muuqaalkaada ku xustid halka aad ka keentay codka aad isticmaalayso. Laakiin inta badan waa lacag oo lama ogola inaad si free ah ku isticmaasho. Waxayna la mid tahay in haddii aad 3 jeer isticmaashid background music aan la ogolayn, inaad mutaysan karto ciqaabo kala duwan. Sidoo kale waxaa kaga digi lahaa inaad isticmaasho music background aanan free ahayn. Si aadan ugu baahan ayaan qaybta hoose ee muuqaalkan waxaan kuu dhigay kanaallo aad ka heli karto background music free ah iyo weliba sound effects. Caydu waa mamnuuc. Waxaa gabi ahaanba ka mamnuuc ah YouTube inaad qof ku weerarto sida cay iyo wixii la mid ah. Haddii aad taas samaysid, qofka aad ataagtay waxa uu xaq u leeyahay inuu ku dacweeyo. Haddii lagugu helo falkaasna, aad ku mutaysan karto ciqaab kala duwan, sida in 3 bilood laga xanibo lacagaha aad ka samaysid YouTube, ama in subscribe-kaada la dhimo ama la joojiyo. Dadka cusub ee kanaalkaada subscribe dhahaya aan waxba laga soo qaadin. In badanna dhacdadan waxay ku dhacday YouTubers caan ah. Tusaale, sanadkii la soo dhaafay waxa ay ku dhacday YouTuber American ah oo aan filayo inaad garanaysaan dhammaantiin, laguna magacaabo Logan Paul, kaasoo soo tabiyay dad isdilay oo Japanese ah. Marka iska ilaali inaad YouTube qof ku ataagto. Lambarka 4 waa filimada anshax xumada ah. YouTube gabi ahaanba waxaa mamnuuc ka ah filimaanta anshax xumada ah, nooca ay doonaanba ha ahaadeen. Haddii aad soo geliso muuqaal anshax xumo ah, saacado kadib YouTube waa ogaanayaa, kadibna waa laga saarayaa kanaalkaada muuqaalkaas. Sidoo kale waxaan ku dhihi lahaa ha ka raadin lacag muuqaal anshax xumo ah. Ha daawan muuqaaladaada. Inta badan dadka ku cusub YouTube waxa ay sameeyaan weliba xilliga ugu horeysa ee ay YouTube muuqaal soo geliyaan, waxa ay sameeyaan inay 30 jeer iyagu muuqaalka daawadaan si ay lacag ku helaan. Taasi waa fikrad qaldan. YouTube waa la socda ruuxa daawanaya muuqaalka iyo meesha uu joogo, maadaama uu isticmaalo wax la yiraahdo IP address. Marka haddii aad daawato muuqaalkaada in ka badan 2 jeer, lama ogola oo waa laga jarayaa. Mararka qaar laga yaabay in laga xiro aadiska aad lacagta samaydo. Marka ka digtoonow daawashada muuqaaladaada. Haddii aad rabtid inaad fiiriso inta qof ee daawatay muuqaalkaada, comments-ka iyo wixii la mid ah, fadlan isticmaal YouTube Creator Studio oo aad ku isticmaali karto taleefankaada gacanta. 6. Sub to sub. Ha isticmaalin websites-ka bixiya barnaamijyada sub to sub oo macnaheedu tahay hel subscribers fara badan ama daawadayaal badan. Waa isticmaali kartaa 2 ilaa 3 jeer, laakiin mar ay ahaataba waa la ogaanayaa. Mar inaad isticmaashay adeegan sub to sub ama views-ka
sidaas darteed ciqaabo badan ayaa jira sida in laga xanibo gabi ahaanba adeega AdSense ama ads-ka ee lacagta laga sameeyo, in laga dilidgareeyo muuqaalkii aad u isticmaashay views kordhiyaha, iyo in kanaalka la xanibo maadaama aad si sharci darro ah u isticmaashay. Waan filayaa inaad ka faa'iidaystay 6 qodob muuqaalkan. Fadlan haddii aad u aragtay mid bulshada inteeda kale faa'iido u leh, la sii wadaag oo u sheer garay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.